ma isweydiisay sababta qof shahaado haysta uu weli shaqo la'aan u yahay? haddiiba waxbarashadu tahay jidka keliya ee guusha lagu hanto, sidee bay ku suurta gashay in dhallinyaro aad u badan ay maanta ku wareeraan mustaqbalkooda iyagoo wax bartay? su'aashani ma aha mid sahlan, balse waa mid ka hadlaysa run aan inta badan la jeclayn in laga hadlo. haddii 4 qof oo kala duwan aad weydiista hal su'aal oo ku saabsan waxbarashada, mid walba wuxuu ka bixin jawaab ka duwan qofka kale. mid walbana wuxuu sabab ka dhigi waxyaabo la saadaalin karo, balse ka fog xaqiiqooyinka ku gadaaman arrinta aynu dooni in aynu daha ka qaadno maanta. carruurnimadeennii waxaana looga sheekeeyey hal sheeko oo keliyata. waxaana loo sawiray sawir qurux badan oo mustaqbal ah, kaas oo ku dhisan hal ballan: iskuulka baro, shahaado qaado, waadna guulaysan doontaa. waa qisadan waxa waalid walbo, macallin walbo iyo guud ahaan bulshada ay ku ababiyaan carruurtooda, ilaa arrintani ay noqotay wax la rumaysto iyada oo aan la isweydiin ma runba. balse marka ubadku maro waddada loo sheegay inuu maro, islamarkaana ka gaaro meeshii ugu dambaysay, wuxuu arkaa wax gebi ahaanba ka duwan wixii loogu soo sheekeeyey ilaa maanta. dhallinyaro badan oo jaamacado ka baxay ayaa weli shaqo raadinaya. qaar waxay ka shaqeeyaan wax aan la xiriirin wixii ay soo barteen, qaar kalena gebi ahaanba way quusteen. taasi waxay dhalisaa su'aal kale: halkee bay wax ka khaldameen? dhibaatadu ma ahan mid la xiriirta hal qof ama hal qoys. waa arrin baahsan oo taabanaysa jiil dhan. waxay saamaynaysaa niyadda, kalsoonida iyo riyada dhallinyarada. marka dad badan ay isku mar dareemaan in la khiyaameeyey, arrintu ma noqon karto khalad shaqsi ee waxay noqonaysaa dhibaato nidaamsan. waxaa jirtay wakhti waxbarashadu runtii ahayd awood gaar ah. qofkii waxbarta wuxuu helayay shaqo, nolol nidaamsan, nolol xasiloon iyo ixtiraam bulsho. tirada dadka waxbartay way yaraayeen, fursaduhuna way badnaayeen. laakiin dunidu ma aha mid halkaasi ku nagaaday. wax walbana way isbedeleen. hase yeeshee, ka bulsho ahaan bulshada Soomaaliyeed isma aynaan bedelin. ilaa maantana waxaynu ku ababinaa carruurtayada wixii sheeka baraaleydii joogtada ah. jaamacadihii ayaa batay, tirada ardaydu xadka ayay ka baxday, shahaadooyinkuna waxay noqdeen wax caadi ah. laakiin tirada shaqooyinka tayada leh kuma sargo'na tirada ardayda wax baratay. marka shahaadooyin badan lasoo saaro iyadoo aan loo diyaarin suuq shaqo, shahaadadu waxay noqotaa mid aan qiimo lahayn sida maanta muuqata. waxaa intaas dheer in jaamacado badan maanta aysan ka fikirin mustaqbalka ardayda. waxay diiradda saaraan tirada la qoro, lacagta la helo iyo dhismaha oo la ballaariyo. ardaygu wuxuu noqday macmiil halkii uu noqon lahaa qof wax la baro, garaadka iyo maskaxdana laga dhiso. nidaamka u dhisan qaabkan ayaa si tartiib ah u beddelay ujeeddadii ay waxbarashadu lahayd. ardaygu wuxuu gelinayaa waqti, dadaal iyo rajo, wuxuuna aaminsan yahay in dhammaadka safarkiisa ay sugayso nolol ka wanaagsan tii hore. laakiin marka uu dhammeeyo waxbarashada, marar badan wuxuu wajahaa albaab xiran iyo su'aal aan jawaab lahayn, taasi oo ah: hadda maxaan sameeyaa? su'aasha ugu muhiimsan ee ay tahay in uu qof walba isweydiiye ayaa ah: maxaa ka dambeeya jahwareerkan? jawaabtu ma aha in dhallinyaradu dadaalyari hayso, mana aha in waxbarashadu qiimo beeshay gebi ahaanba. xaqiiqdu waa in nidaamka waxbarashada uusan la jaanqaadin isbeddelka degdega ah ee dunidu ku tallaabsatay. waxa la barto iyo waxa loo baahan yahay in la baro ardayda waa 2 waddo oo kala fog. waxay ahayd jaamacaddu in ay noqoto goob ardayga dhan walba ka dhisto, ka qayb qaadato kobaca garaadka iyo maaminta nolosha, islamarkaana gaashaan uga dhigto xirfad la jaanqaadi karto hadba sanadka la joogo iyo suuqa shaqada waxa looga baahan yahay. taa beddelkeeda, jaamacaddu waxay noqotay goob ardayga lagu hayo 4 sano, laguna baro aragti guud, in la qaybo buugaag aan lahayn wax ahmiyad, laguna imtixaamo. laakiin marka uu suuqa shaqada galo, waxaa la weydiiyaa: xirfad ma leedahay? maxaad qaban kartaa? su'aashaas oo ah mid aan gebi ahaanba loo soo diyaarinin ardayga. goortaas ayuu ku baraarugaa in shahaadada la soo siiyey
aysan ka jawaabi karin su'aalaha ka jira suuqa shaqooyinka, waxaana u bilowdo bilow kale oo wareerkiisa wato. Dunida maanta, xirfadaha ayaa noqday ilaha lacageed ee dhabta ah. Qof yaqaan sida wax loo sameeyo, loo iibiyo ama dhibaato loo xaliyo ayaa ka fursad badan qof haysta shahaado aan si cad u qeexnayn waxa uu ku fiican yahay. Tani waa xaqiiqo adag, balse ah mid la arki karo maalin kasta. Waxaa intaas dheer in waxbarashada lafteedu noqotay ganacsi weyn. Jaamacado badan ayaa waxay ku tartamaan xayeysiin, darajooyin iyo ballanqaad qurux badan. Ardayga waxaa loo sheegaa riyo, balse lama tuso khatarta ka dambaysa marka riyadu burburto. Khasaaruhu wuxuu ku dhacaa qofka keliya. Qaar ka mid a dhallinyarada markay fahmaan arrintan, waxay bilaabaan inay raadsadaan waddooyin kale. Waxay bartaan xirfado gacanta ah, ganacsi ama shaqooyin online ah. Qaar waxay ku guulaystaan si degdeg ah, kana yar intii ay jaamacadaha ku qaateen. Taasi waxay dhalisaa su'aal kale oo ah, jaamacaddu miyay ahayd waddada keliya ee ii furnaa? Si kastaba ha ahaatee, tani macnaheedu ma aha in waxbarashada la iska diido. Waxbarashadu weli waa muhiim haddii loo adeegsado si miyir leh. Dhibaatadu waxay ka timaadaa marka shahaado loo arko in ay tahay waxa go'aamiya noloshaada, balse waa in aad ogaataa in shahaadadu tahay hal tallaabo oo ka mid ah safarka nolosha. Runta aan inta badan la sheegin ayaa ah in nolosha maanta ay u baahan tahay qof si joogto ah wax u barta, waxna u qabta. Qof hal mar wax barta kadibna daaya wuxuu halis ugu jiraa inuu ka haro tartanka nolosha maanta. Waxbarashada dhabta ah ma dhammaato xataa marka shahaadada la qaato. Marka loo eego dhammaan arrimahan, waxaa muuqata in dhibaatooyinka dhallinyarada haysata aysan ka imaan hal meel. Waa isku dar nidaam khaldan, filashooyin been ah iyo faham la'aan ku saabsan sida dunidu maanta u shaqayso. Fahamkaas ayaa ah furaha isbeddelka. Wasaaradda, macallimiinta, waalidiinta iyo guud ahaan bulshada, taas ayaa loo baahan yahay in ay ku baraarugaan. Waxaana muhiim ah in uu qof walba isweydiiyo, maxaa ka khaldan nidaamka waxbarashada ee maanta jira? Haddaba, gunaanad iyo tala bixin wax ku ool ah. Dabuubta oo kooban, waxbarashadu ma aha cadow, mana aha badbaadiye mucjiso ah. Waa aalad sida aalad kasta oo kale, una baahan in si sax ah loo isticmaalo. Qofkii fahma waxa uu baranayo iyo sababta uu u baranayo ayaa ka faa'iidaysan kara daruusta uu qaato. Qofkii si indhala-aan ah u raaco sheeko lagu soo ababiyey, ugu dambaynta wuxuu wajahayaa lugooyo kabashadeedu adag tahay. Dhallinyarada maanta waxaa la gudboon inay isweydiiyaan su'aalo lagama maarmaan ah ka hor inta aysan go'aan qaadan. Xirfaddani ma tahay mid looga baahan yahay suuqa shaqooyinka? Suuq ma leedahay? Anigu maxaan ku kordhin karaa? Shahaadadu ha noqoto albaab aad uga sii gudubto horumar kale, yaysan noqon meel aad ku istaagto. Ugu dambayn, mustaqbalkaaga ha ku aaminin ballan cid kale bixisay. Waa mas'uuliyad shakhsi ah. Qofka isku daro waxbarasho, xirfad iyo fahamka dhabta ah ee halka ay u jeedo nolosha iyo dunida maanta, wuxuu ka badbaadaa jahwareerka aynu soo sheegnay. Su'aasha dhabta ahna weli way taagan tahay. Waxaa sanado badan lagugu soo ababiyey in aad wax baratay, aad aqoon-yahan tahay, aad jaamacad shahaado ka haysato. Intaa marka laguu sheegay, miyaad aamintay? Mise ilaa maanta garaad ahaan ayaad isdhistaa, waxaadna akhrisaa buugaag kala duwan bil walba? Haddii jawaabtaadu maya tahay, taasi waxay ka dhigan tahay in aadan fahmin ahmiyadda uu akhrisku leeyahay. Aniga waxaan kugula talin in aad hal su'aal isweydiiso, taasoo ah, haddii aad 12 sano dugsi soo baratay, amaba ay kuu dheer tahay in aad ka soo baxday jaamacad, isla markaana muddada intaa la eg wax lagu soo bareeyey. Haddaba, haddii muddada intaa la eg aanan lagu soo barin ahmiyadda akhrisku leeyahay, waa su'aaleh maxaa lagu soo baray? Jaamacaddu ma ku soo bartay sida nolosha loo fahmo, mise waxay ku soo bartay keliya sida imtixaanka looga gudbo?